dadka Soomaaliyeed waxay daaleen dastuur la leeyahay 22 sano oo lagu dhamayn karo 2 weeks oo leeyahay 22 sano uu yaalaa oo dastuurkii adduunka ugu kharashka badan uu galay ah waqti ugu badan qaatay dunida dadka Soomaaliyeed way ku daaleen waan arintaas dastuurka inay ceeb badan ka jirto waxa laga waaye 2012 ilaa hadda inuu fadhiyo waa ceeb waaye بروسيسكا شنو إنه كونسنسس ما بوريا مش شنو وين واحد laga hadlayo waa inaha consensus ka waxaan u baahanahay aniga in la qiyaaso consensus ka maxaa laga wadaa waa in definition lagu sameeyo consensus wuxuu yahay consensus adduunka ma jiro 100% ma jiro haddii la soo helo 100% dunida consensus raadinayno marka guud ahaan waxay xukuumadda ugu dhigan tahay majority dadka Soomaaliyeed ku salan baa wada baa ku qanacsan waa lagu qanacsan processka doorashada iyada ma axad doorreeb in xoolaad ku mintagelisid waliba adoo iisi raacinaya gobolka Banaadir 3 milyan iyo ka badan dad degan waxay danasiin nala yaryar oo tugo yaryar oo baadiye ah oo doorashooyin laga soo qabtay way marka reer xamar reer Banaadir xukuumadda waxa ugu qorshaysan inay cod yeeshaan xaq yeeshaan gobol xamar waa طبعا doorashadu waa laba mid waa midkii heer federaal oo la isugu imaan doono oo talooyin ay ka dhici doonaan oo dabcan u baahnaan doona qodobada dastuuriga la xalinayo maqaamkii muqdisho in la cadeeyo ay oo aan looga maarmaynin taas way imaanaysaa way soo socotaa dabcan waana hawl culus oo dadka Soomaaliyeed u taalo laakiin midan hadda aan wadnay doorashada marka ugu horeysa aan hadda wajahaynay xoog leh aan registration u sameynay xasaabta loo sameynay waxa waaye waa doorashada localka marka doorashada localka waxay la tahay dadka caasimadda Muqdisho jooga oo ah dadka 3 milyan lagu qiyaaso meelahaas dad Soomaaliyeed oo dhan walaalahooda reer Hargeysa ama reer Garowe ama waxaan ku dhahaa hadday heleen xaq inay isdoortaan kuwana inay isdoortaan oo ay madaxdooda u adeegaysa ay ayagu soo saartaan waxay la tahay waa xaq waana dastuuri waana logic cid kasta oo su'aalaad qabtana waxaa laga maarmaana inay dib isu fiiriso arrintaas anagu tii iyadoo laga bilaabay caasimadda ayaan anagu hadda halkaas ayaan ka bilownay waa u tiin degmooyinka oo registration ka socda qorshaha loo qorshaysan waxaa weeye magaaladan caasimadda haddii aan la idmo in dadkeeda la registereeyo waan ognahay qiyaasta waxaan haynaa dad ka badan milyan in laga register